maryaha shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale iyo mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda OGM Mustafa Cusmaan oo iyaguna ka hadlay munaasabadaasi waxay soo bandhigeen qorshaha horumarineed ee labada shirkadood gaareen maryaha shirkadda Dahabshiil oo halkaasi ka jeediyay khudbad dheer waxa uu tilmaamay shirkadda Dahabshiil ay door muhiim ah ka ciyaartay horumarinta iyo sidii la iskugu xiri lahaa qurbajooga Soomaaliland iyo dadka gudaha runtii diaspora ama lacagta dibadda ka imanaysa siyaabo kala duwan ayay noogu timaadaa iminka waxaynu aragnay dad badan oo fasax Soomaaliland maanta u jooga oo dhaqaalihii waddanka runtii si dadban wax ugu faa'iideynaya maxaa yeelay familiga iyo 10 qof ama 5 qof ama 6 qof qoysaskoodii iyo reerahoodii soo booqday waxay keenayaan hadiida kala duwan ama dhar ha noqoto ama lacag ha noqoto hawsha shirkadu ka koobnayd ama Djibouti ha ahaato waxay hawshan ka bilownay ama aabahay ka bilaabay ahayd sanadihii dambana jiilkii labaad waxaan ka mid ahay hawlahii ganacsigu waan yara ballaarinay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay waxa uu baaq u diray qurbajooga Soomaaliland isagoo sidoo kale ku amaanay doorka muhiimka ka ciyaaraan isagoo sheegay loo baahan yahay in dadaalkooda ay ka sii lama laabaan barnaamijka qurbajooga